Soomaaliday wax laydin carbinayaa laydin caawinayaa cilmi inaydin barataan oydaan noqon cawaaliyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantiin meel kastoo aad joogtaan. kusoo dhawaada mar kale iyo barbaarsama channel oo had iyo jeer aan idinka soo baahiyo ama idinka soo gudbiyo barnaamijyada ku saabsan barbaarinta iyo tarbiyadda wanaagsan ee caruurta, innagoo mararka qaarna soo qaadana dhiirigelinta waalidiinta, gaar ahaan hooyooyinka, iyadoo aanay suuragal ahayn dhiirigelintaasi la-aanteed in ay hooyooyinku barbaarin wanaagsan iyo tarbiyad sameeyaan, maadaama qofka marka ugu horeysa ay tahay inuu naftiisa ugu horeysiiyo wax walba. Subscribe taabo si aad noogu soo biirto, waananu kusoo dhaweyneynaa. haddii aad hore noola joogtayna waad ku mahadsan tahay joogitaankaaga nala joogtay. gambaleelka furo si aad uga warhayso hadba barnaamijyada cusub ee barbaarsama channel kusoo biira. asxaabta iyo waalidiinta cusub, khaasatan u badan hooyooyinka ee baryahan dambe aad noogu soo biirayna aad iyo aad ayaad ugu mahadsan tihiin, waanan idin soo dhaweyneynaa. waxaan idin leenahay mar walba soo dhawaada. mawduuceennan iyo markan waxa aynu kusoo qaadanaynaa sidee ayaan cadhadayda u kaantarooli karaa, maadaama ay tahay su-aashii ugu badnayd ee muddadii 2 wiig ee u dambeeyey inta ugu badan waalidiintu ay isoo weydiinayeen, khaasatan hooyooyin badan ay isoo weydiiyeen, si markaasi aanay caruurtii ama canaananin ama u dilin ama hadallo xunxun ugu odhanin xilliga ay cadhaysan yihiin, iyagoo sheegay inta badan cadhadooda inaanay kaantarooli karin. waana waxyaabaha ugu muhiimsane qofku haddii uu awoodo ee uu sameeyo ay waxyaabo badan aynu ka hadalno oo barbaarinta ku saabsan ay ku hirgelayaan barbaarinta wanaagsan. aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay in ay jiraan waalidiin raba inay cadhadooda kaantaroolaan, waalidiin raba inay isbeddel sameeyaan, waalidiin raba inay wax badan ka beddelaan sidii markii hore ay ula dhaqmayeen caruurtooda. aad ayay anigana taasi farxad gelinaysaa. waxaana waalidiinta khaasatan hooyooyinka aan ugu mahad celinayaa, ama aan leeyahay waa ku mahadsan tihiin sidaad u rabtaan mar walba inaad isbeddeshaan. sababtan hooyooyinka usoo hormarinaya waxay tahay marka percentage-ka la eego barbaarsama channel waxa uu i tusayaa 87% in ay yihiin dumar cidda ku xidhan ama hooyooyin, halka 26% ay yihiin aabbayaal ama rag yihiin. marka waxaan leeyahay raggana soo dhawaada, aabbayaasha, inamada, dhammaantiin waxaan idinku soo dhaweyneynaa barbaarsama channel inaad idinkuna nagu soo badataan oo bahdayada ka mid noqotaan. nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ayaa waxa u yimid nin, markaasuu ku yidhi nebi maxamedow ila dardaaran calayhi salaatu wasalaam. nebi maxamed wuxuu kula dardaarmay sida ay dhammaanteen wada ogna ama in badanoo idinka midi aad garanaysaan xadiiska. wuxuu ku yidhi ha cadhoonin, markaasuu yidhi ila dardaaran 3 jeer ku celiya ha cadhoonin, ha cadhoonin, ha cadhoonin. bini aadan baynu nahay, idinma odhanaya anigu ha cadhoonina, laakiin qofka bini aadankii marka uu cadhoodo waxaa loo baahan yahay inuu cadhadiisa kaantaroolo si aanay u dhicin waxyaabo uu hadhow ka qoomameeyo. waxaynu aragnaa inta badan qofka bini aadankii markuu cadhoonayo neerfihiisu aada u kacsan yihiin, caadifadiisu aada u kacsantahay, dadka qaar is ogeynba in ay kasoo yeedhaan hadallo aada u fool xun, in ay geystaan gacan qaad, iyada oo la arko haddana saacado kadib qofkii markuu dego ama maalin kadib ama 2 maalmood kadib inuu qoomameynayo wixii maalintii uu ku dhaqmay, falalkii maalintaa ka dhacay oo cadhaysnaa inuu aada u qoomameynayo. tan
la dhaqanka caruurta iyo barbaarintii waalidka ka dhaxaysaana waa sidii oo kale un. hooyooyin badan baa jira oo caruurtooda dila, siday sheegeenna marka ay dilaan hadhow cadhadii ka bacdo iyagu dib u ooya oo dib isaga qoomameeya in ay caruurtoodii falalka xunxun kula dhaqmeen. kama aha yacni xumaan, laakiin cadhadoodii ayay kaantarooli kari waayeen. waayo qofka xun hadhow wixii xumaantii u sameeyey ma aha mid isku qoomameeya, waa mid had iyo jeer isla saxsan uun. marka hadduu qofkaniba qoomameynayo ooyaya hadhow waxay ka dhigan tahay cadhadiisii ayaanu awood u lahayn inuu kaantaroolo. qofka bini-aadanka ah haddii cadhadiisa uu kaantarooli waayo waxaa ka dhasha xanuuno badan oo maskixiyan ah ama nafsiyan ah, taasoo uu qofku noqdo qof mar walba cadhoonaya, qof mar walba wax yaroo kasta neerfis ka noqonaya ama neerfiisa kicinayaan. haddii 2 kelmadood qof isweydaarsadaan isla markiiba gacanta qaadaya. sidaa darteed culimada nafsiga ama dadka dhakhaatiirta psychologist-ka ah ayaa inta badan waxa ay dadka kula taliyaan si aanay ugu imanin xanuunadaasi nafsiga ahi in ay isku dayaan inay bartaan cadhadooda. waxaa lagula talinayaa dadka, ama aniguba aan hadda idiin soo jeedinayaa, in uu qofku barto waxyaabaha uu si xoog ah uga xanaaqi karo, waxyaabaha naftiisa ilaa heerkaa kicin kara, magaranaysa neerfihiisa ilaa heerkaa gaadhsiin kara, inuu gacan qaado, inuu qof caayo, hadallo xun ku yidhaahdo, iyo inuu qof magaranaysaa waxyeelooyin kaleba geysto hadhow ka qoomameeyo. waxaad moodaa Soomaalidu inta badan marka qof 2 kelmadood lagu yidhaahdo ama la caayo ama si xun loola dhaqmo, haddii uu iskaga dhaqaaqo in ay u yaqaanaan qof fulay ah ama qof nacasa. laakiin kaasi ma aha fulay, mana aha nacas, waxa weeyaan ka guulaystay ee cadhadiisa kaantaroolay. qofka cadhadiisa kaantaroola waxa weeyaan qof guulaystay. haddii kale dhinaca kale ayay isku beddelaysaa, oo Soomaaliduna ka maahmaahaan haddii uu qofku wax kastoo yar oo gurigiisa ka dhex dhaca caruurtiisu sameeyaan, dadku ku yidhaahdaan, hadduu wax walba ay taabtaan uu ka cadhoodo, dhinacii kale isku beddelaysaa ay odhan jireen Soomaalidu nin cadhooday laga badi. marka waxaa fiican qofku horta inuu barto muxuu ka xanaaqaa, maxaa ilaa heerkaa gaadhsiiya, iyo waayo uu uga xanaaqa markay waxaasi dhacaan. haddii aad 2daas su-aalood isweydiisid ood waxaad ka xanaaqdana ogaato, sababta aad uga xanaaqdana aad ogaato, ee ilaa xadka ay ku gaadhsiinayso, marka waxa fiican wixii inaad ka fogaato, xal baad u helaysaa. haddii wixii ay yihiin inaad waxaa iska dayn karto ama ka fogaan karto, ama qofkaasoo kale uu noqon karo qof noloshaada ka bixi kara, kaa xanaajinaya, marka wixii waxaa lagu taliya had iyo jeer qofkaas inuu ka dheeraado waxyaabaha kicinaya, nafsiyan u kicinaya. haddii aynu u soo noqono teenan tarbiyadda caruurta, dee ilmahaagii kama dheeraan kartid, laakiin maxay tahay waxyaabaha aad ka xanaaqday uu ilmahani sameeyo? waxaa taasna lagu talinayaa inuu qofku ilmihiisa yar, xataa diinteenna suuban ay ku jira, calashaan ilmuhu markuu 5 khalad sameeyo, khaladka 5taaba la yska indhatiro, khaladka 6aad in wax loo sheegi karo, lala hadli karo, oo ma garanaysaa ama laga xanaaqi karaba. laakiin haddii waalidku oo wax badan uu u fiirfiirsado, mar kastana isaga naftiisii xanaaq baa ku imanaya. waxaa jira tusaale ahaan miis baa wax lagu wada cunayaa ama ku wada cunaysaan adiga iyo ilmahaagii. ilmahaagii waxbaa ka daatay ama koobkiibaa dhulka ku dhacay. ilmihii si xun baad wax laga yaabaa uga xanaaqday markiiba,
adigoo u arkaya inuu ama ogaan u tuuray ama si uun ay neerfis kugu samaysay. in yar kadib ayaa adiga ayay wax kaa dhaceen, markaasaa waxaad u arkaysaa wax iska caadi oo dhici kara, khaladee dhici karaad u arkaysaa, laakiin taas ma aha saxdii. ilmahaagana waxay ku abuuraysaa inuu isagu aad si gooniyo xun ula dhaqmayso ay tusaysaa. adigana shaqsi ahaan ma kuu fiicna inaad khaladaadka qofka kale u fiirsato, kuwaagana aanad arkin. marka haddii waxyaabahaasoo kale ee sidaa u yaryar yihiin waxyaabaha aad ka xanaaqayso, waxa fiican in aanad u fiirsan. iska indhatir waxyaaba carruurta aada u yaryar inta badan samaynayaan. waa inaad isdhaafiso, iska indhatirto, calashaan aad dhinaca wanaagsan ka eegto. haddii markiiba ay kugu soo dhacdo waa wax dhici kara, ilmaha yar uu ka dhacay ma garanaysaa koobkani, waaba ilmo yardee. marka naftaadii xanaaq ma kacayso, waxay ogaanaysaa positionka adigu isgeli ilmaha yar ku jiro, adigu isku bedel halkaa. lacala hadduu kaa dhici lahaa, lacala haddaad khaladkaa samayn lahayd, waa wax dhici kara. adduunka qof aan khaldamin ma jiro. ilmo yaroo iminka wax walba ku cusub yihiin oo baranayaana dee waaba khalad u joogo, wax badan baa ka khaldamaya. marka mar walba xagga wanaagsan ka eeg, xagga wanaagsan ka eeg. markaa naftaadii ma kacayso oo isla markaaba hormoonad dareenadii ma garanaysaa, dheecaanadii cadhada ahaa maskaxdu ma soo daynayso oo ma garanaysaa markaa maaragtay maskaxdu soo dayso dareenadaas. dadka cunaha xanuuna, margiyada xanuuna, dhabarka, madaxa, indhaha, waxaas oo xanuun ahay hadhow adiga waxay kugu ridayaan xanuuno kale waaweyn bay kuusii gudbinayaan. haddii aad wax yaro kasta oo ilmuhu sameeyaba aad ka kacdo oo aad noqoto qofka xanaaqa. marka taas waa taa inaad iska indhatirto wax badan, dhinaca wanaagsanna aad ka eeg. waxyaabaha kale ee inta badan lagu taliyo dhakhtarada cilmi nafsiga ay kula taliyaan dadka waxaa ka mid ah, haddii uu qof kaa xanaajiyo, ilmahaaga aad ka xanaaqdo. inagu mawduucan ka carruurtaynu dhex taagnaanaynaaba, laakiin waa isku mid. qofkii doonaba ha kaa xanaajiyo, qof weyn qof yar, cadhada waa isku mid. haddii uu kaa xanaajiyo qof, isla markaa haddii aad fadhiday meesha ka kac oo markaa meeshii ka dhaqaaqoo ka tag, adigoo aan hadlin. iskuna day inaanad isla markiiba hadlin ood meeshaa ka dhaqaaqdo. hadhow qofka wixii aad ku odhanayso iyo sidii aad ugu sheegayso waxay noqonaysaa si aan markaan xanaaq ahayn oo neerfahaagina kacsanayn, naftaadina wax dhiba iyo wax cidhiidhiya aanay dareemahayn. markaa haddii meesha aad taagan tahayna wax cadhaahay kugu dhacaan, fadhiiso. laakiin anigu tala ahaan waxaan inta badan kusoo jeedinayaa waalidka, haddii ilmihii wax sameeyey aad halkii ay wax ka dhaceen oo khaladka ku galay ag fadhiisato, kulley ma aamusaysid. markaa tala ahaan anigu waxaan odhanayaa ama soo jeedinayaa inaad meeshaa ka dhaqaaqdo, qolkaas inaad ka baxdo, in aad meel kala gasho. tan kale ee inta badan lagu taliyo waxa weeyaan qofku inuu lugaha dhulka ku dhufto oo kale, gigigig lugaha dhulka ku garaaco. lugahaas dhulka lagu garaacayaa neerfihii kor u kacay, ma garanaysaa caadifadaadii iyo dareemahaagii kor u kacay iyo dhiiggii ay dejinayaan. calashaan qof wax sameeyey oo kaloo nafisay ayaad noqonaysaa inaad lugaha dhulka ku dhufato si xoog ah. waxa kale oo ay sheegaan, inkastoo dee waddankeennii aan u malaynay inaanay suurtagal ahayn, marka dhinac laga eegana ay suurtagal tahay, waxyaabahan boxinka ah, boxinka lagu ciyaaro oo kale, inuu feerhfeerhka ayaan ka wadaa, feerhfeerhka lagu ciyaaro inuu qofku guriga soo dhigto, gurigiisa meel ka mida soo sudho ama istaajiyo, kadibna waqtigaa uu cadhaysanyay halkii uu qof
cadhadaa kula dhici lahaa ee gacan qaad samayn lahaa inta badan waxaa lagula talinaya waa dadka gacanta qaada arrinkan iminka ay gacan qaadkoodu badan yahay in ay magaranaysaa intay galaan qolkaas bahashaasi u taalo ay bahashii feer kaga waalaan markaa waxay noqonaysaa sidii magaranaysaa qofkina wuu badbaaday ilmihii yaraana wuu badbaaday qofkiina wuxuu helaa wuxuu dee cadhadiisii hoos ugu soo dejiyo markaa dadka gacan qaadka badan inta badan boxinka ayaa lagula taliyaa inay sameeyaan ama ha tagaan meesha lagu sameeyo ama guriga ha soo dhigtaan oo markaa ha sameeyaan oo ha feedhfeedhaan lugaha oo dhulka lagu garaaco haddii qof kaa xanaajiyo waxyaabaha aad ku caawin kara ama ilmaha yar aad ka xanaaqdo isla markiiba markaad meeshii ka baxdo ama suuliga ama qolka kale gal albaabka soo cesho markaa neefso sankaad ka qaadanaysaa neefta xoog uga nuugaysaa afkana waad ka soo daynaysaa taasi waxay keenaysaa inaa cadhadaadi ay hoos u dhacdo oo aad noqoto qof dee dib u soo noqday oo degay marka waxaa lagu taliyaa inta badan neefsashadu qeyb weyn ayay ka qaadataa in aad neefsato oo aad ilaa 8 jeer tira ahaan ilaa 8 jeer ayaa la sheegaa in aad neefta sanka ka qaadato afkana kasii dayso marka waxaad is arkaysaa insha allah adigiyoo degay waxyaabaha ugu muhiimsan ee aynu diinteenna ku ognahay waxaa ka mid a qofku inuu shaydaanka iska naaro hooyooyin badan waxay ku yidhaahdeen ma karaynaba ma xasuusanayna inaanu shaydaankii naarno markaas hooyooyinkaasoo kale shaydaankii inay naaraan oo kale aan xasuusanahayn degdeg meesha ha uga dhaqaaqaan degdeg ilmaha yar dushiisa ha uga tagaan intaanay wax ku dhufanin marka qol kale degdeg ha u galaan intay wax walba faraha ka qaadaan ay hayeen 10 daqiiqo markaad halkaa ku jirto markaa xataa halkaasaad shaydaankii inaad iska naarto ku haleelaysaa intaa aad keligaa tahay waayo dib baad usoo noqonaysaa cadhadaadii o dhimo hoos bay u degaysaa waana laga ducaystaa cadhada badan waayo cadhada badan waxay ka mid tahay waxyaabaha dee nebigeennii xagga horesan kusoo sheegay oo inoo sheegay inaanay fiicnayn inta aynu isdejin karno qof walba intuu isdejin karo oo naftiisa wadamadan qurbaha wayna arkaynaa hooyooyin badan baa ku dhiban hooyooyin badan baa maskixiyan u xanuustay hooyooyin badan baa arrinkaa cadhada kantarool la-aanta cadhadooda darteed caruurtii looga qaaday oo lagu yiri hooyo fiican baa tahay laakiin cadhadaadaanad kantarooli karin marka saas caruurtii lagaga qaaday marka cadhadan haddaad kantarooli weydo waxay kuu gudbinaysaa waxyaabo badan oonad hadhow kasoo kaban karin markaa isku day mar walba in aad cadhadaada kantaroosho ugu horeynna in aad barato waxa kaa xanaajiya iyo sababta ay kaaga xanaajiyaan kadibna aad xal u hesho ta caruurtana aanad u fiirfiirsanin oo khalad walba oo ilmaha yari galo aanad ka daba qaylinin aad isku daydo inaad waxyaabo badan u jeer dhaafto waxaa laga wadaa saamaxdo kelmadaha aad fahmi weydaan hoosta igu soo qora ee lahjadeyda ka mid ah insha allah aad iyo aad baan idiin salaamayaa intaa ayaan kusoo koobi doonaa mawduuceennan iyo markan haddii aad ka heshay like taabo siina sheergare si uu gaadho waalidiinta kale ee soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu